naqasku waa igu xirnaa ma istaagi karin wax ma cuni karin qandho waa i haysay intaba ilaahay waa iga bogsiiyey waa qaar ka mid ah dadkii uu soo ritay cudurka COVID-19 ee la keenay isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo hadda dib caafimaadkooda u helay 9 qof oo ay ka mid tahay Maama Xadiyo ayaa isbitaalka laga bixinayaa kadib dib u soo roonaanshahooda waxaa la keenay isbitaalka iyadoo xaaladooda caafimaad ay aad u liidato qaarkood uusan miirkoodu joogin hadda tacaal badan oo ay u sameeyeen maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka Martiini Allah ayaa caafimaad siiyay sida ay sheegayaan bukaanadii la daaweeyay walay keenay markaas xoogaa tibcaanana naqaska igu xirnay mar allaala markii la keenay waxa la igu xiray tii naqaska waa fiicnaado xoogaa yara ka bacdi waa la soo wada qolaa la keenay ilaa iyo hada daryeelka saana igu socday anigoo yaaban oo inta cadeeyay oo 4 cunug xambaarsan tahay iyo gaari gacan haba meel la igu tuuray guriga la igu celiyay subaxii dambe la soo cararay Soomaali Suudaan baa la ikan waa la baara waa qabtaa baa la dhahay xagee aadaan ku iri Martiini dadka lagu dilaa hadii lagu dilo nasiibka dadka dhibanaya kamid anoo qaawana la soo cararay maantana waa anigan labisan isbitaalka hal yimaado dawladda hal caawiyo shicibka hal caawiyo shirkadda hal caawiyo hay'adda hal caawiyo dad oo lacag haysta oo isticmaali aqoon jira aniga lacag waa haysta bartayda oo xanuunsan isbitaalka keenay 3 maalmood ka hor ayadoo ogaa lahaynin alxamdulillah shukr bil caalamiin ilaaha ma hadda iska leh waa igu caafimaaday markaan keenay inay meed tahay anoo ogaaya keenay waa la daaweeyay kalkaala fiican la kulmay waana ii daaweeyeen bukaanada isbitaalka ku bogsooday ayaa dadka la xanuunsanaya cudurka COVID-19 ee guryaha jooga waxa ay ugu baaqeen inay yimaadaan isbitaalka laguna daaweeyo markii hore san aaminsanay iyo sida hadda isbitaalkan isku arka laba maahan waa kala labo waagi hore waxa la lahaa isbitaalka Martiini dadka dhaxgay uu ku dhidhintaa lama daaweeyo balse hadaan cid aan ka yeelay ma lahan waa li daaweeyay dhaqaatiir daayira joogto kuwa weynaa jooga habeen iyo maalin u taaga dadka bani'aadanka ana hadda waxaan qiijiyay oo xubsaday isbitaalka inuu yahay isbitaal fiican isbitaal dadka lagu daaweeyo adduunyadan iska ma dhama waa waqti iska ilaahay og yahay xaaladiisa ma dhama laakiin kolba iska dhamaad doontee dhaqaatiirtan Martiini yaa keenay dhaqaatiir fiican la kulmay alxamdulillah shukr bil caalamiin waa ii dadaaleen waa ii qalqaalsan isla markaa sareeray ii saareen waa ii daaweeyay waxaan isbitaalka keenay hooyaday oo xanuunsan oo oksijiin u baahan isbitaalka keenay markii isbitaalka keenay oksijiin waa la shiray dhaqaatiirtu way ii shaqeysay daawooyin way la siiyay maalinka keenay sabdiga ay ahayd sabdigiisa kalena maanta waa dhaqaatiirtu si fiican ay daawada ugu siiyeen hooyaday oksijiinka waa lagu xiray madaxa shaqaalaha nursing ee bukaanada la tacaalaya marka isbitaalka la keeno ayaa sheegtay in bukaanka ay ula dhaqmaan sida ugu wanaagsan ee qof bukaana loola tacaamulo ani waxa ah madaxa nursing-ka waxaana diyaar u nahnay bukaankii soo xanuunsado xitaa anaga wax walba u qabano oo wax walba oo bukaanku u baahan yahay in xataa hadii cunto la siinayo in anaga aan siiyana ama wax walba u qabanayno agaasima ku-xigeenka isbitaalka Martiini ayaa isaguna sheegay in shaqaalaha isbitaalku markasta ay diyaar u yihiin la tacaalida bukaanada la keeno isbitaalkan markasta shaqaalaha caafimaad waxay diyaar u yihiin inay bulshadooda caawiyaan dadka magaalada jooga oo aamis oo dhahayaan ama dacaayada dadka warxuma ku tashiilka ah oo dacaayada fidinaya dhahayaan isbitaal Martiini waa lagu dhintaa war qofka dhimanaya waqtigiisa kale qofka ilaahay u dilaana cid badbaadin karta mana laakiin mar walba anaga waxaan ku dadaalnaa shaqaalaha caafimaadka ay ku dadaalaan oo dhaqaatiirta ay ku dadaalaan qofkaas inay badbaadiyaan haday tiisa galisana tii ilaahay ma celin karaan laakiin waxa jirta inta badan dadka meesha soo gala matalan hadda xal oo kale waxa ku jirta ugu yaraan 60 ruux in ku dhow ma 60 ruux dhimatay maya waa la badbaadiyay 3 ama 4 ama 2 ka dhimatay taasina waxa waay waa dhimasho caadi oo waqtigiisa qofka uu galay laakiin ma aha dayaxumo ma aha aqoon darri ma aha ummadda Soomaaliyeed ha ogaadaan dadka meesha ku jira waa dad walaalahooda dhaqaatiirtooda ilmahooda wiilashooda gabdhahooda waa oo si fiican u tababaran oo daaweynaya diyaarna u ah mana jirto wax la yiraahdo dayacaad isbitaal Martiini oo ah isbitaalka ay dawladdu u qorshaysay in la keeno dadka la xanuunsanaya cudurka COVID-19 ayaa marba ka dambaysa waxa la keenayaa dad uu ku soo dhacay cudurkaasi halka kuwa kale oo caafimaadayna hadda ay ka sii baxayaan isbitaalka Cabdullaahi Axmed Qorane warbaahinta qaranka
Muqdisho.